السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin. cashir waxaan maanta ka hadlaynaa oo ah bootstrap, yani sida loogu sameeyo navbar ama menuga topka, yani website-da markii la sameynayo navbar ayaad u baahan tahay. navbarkaas sideed ugu sameyn lahayd adoo isticmaalaya bootstrap. marka sida caadiga ahayd aan samaysano maxaa la yidhahdaa folder cusub ayaan samaysanaynaa. new folder waxaan u bixinaynaa maxaa la yidhahdaa navbar ayaan u bixinaynaa. kadib aan jiidaynaa waxaan dulligaynaa maxaa la yidhahdaa Visual Studio Code. waxaan iska masaxaynaa welcome-ta iska masaxaynaa. file cusub ayaan samaysanaynaa. failkii waxaan samaysanaynaa html-ka index.html samaysanaynaa. kabacdi waxaan soo qabsanaynaa maxaa la yidhaahdaa bootstrap cdn ayaan soo qabsanaynaa. waxaan ku qoraynaa get bootstrap quick start. laba nooc ayaad soo qabsanaysaa, laakiin inagu waxaan soo qabsanaynaa start template ayaan soo copy garaysanaynaa. kabacdi waxaan ku paste garaysanaynaa html-keena. boilerplate-kaas ayaan soo qabsanaynaa ku paste garaysanaynaa. kabacdi haddii aan hadda noo soo baxay. kabacdi haddii sort of aan tagayaa title-ka waxaan ku qoranaynaa bootstrap navbar ayaan ku qoranaynaa. halawdana waan iska masaxaynaa. halkan waxaan ku qoraynaa marka waxaan leenahay nav oo elementiga ah. class waxaan siinaynaa la yidhaahdo navbar oo bootstrap leeyahay. class labaad ayaan u baahannahay, kaas oo la yidhaahdo navbar expand dash navbar extend sm. yani sm-ta waxa weeyaan yani aaladee markuu ama size-ka aad rabtid inuu yacni aad rabtid inay saddexda calaamadooda yani mobile menu-ga ay kugu samaysmaan oo kale. class kale waxaan u baahannahay pg oo colorka navbarkeena soo ekaan lahaa, marka madow ayaan ka dhigaynaa dark. class kale waxaan u baahannahay la yidhaahdo navbar dark, kaas oo sheegaya bootstrap, yani maadaama uu navbarkii uu madow yahay, tegaskana waxaad ka dhigtaa caddaan. kolba yani tegas qoraal ku habboon maaragtay kolba colorkiisu yahay qoraal ku habboon si oo kale weeyaan. hal kale aan u baahannahay oo maxaa la yidhaahdaa
maxaa la dhahaa class kale la yiraahdo fixed top kaasoo maxay ahayday siinaya maxay ahayday fixed top yani ka dhigan navbarkan yani top ha taagnaado iyona dhaqdhaqaaqin halka ha taagnaado yani haddii pageka kor iyo hoos haddii la aadayo kale halkiisa iska taagnaado marka tab ayaan leenahay halkana waxaan leenahay enter waxaan sameysanaynaa haddaba div kale oo la yiraahdo container kaasoo waxa dhan dhexda isugu keenaya center buu ka dhigayaa haddana waxaan sameysanaynaa brandigi ama logadii waxaan leenahay navbar dash brand halkan waxaan dhahaynaa waxaan iska dhahdaa directed index dot html kadhig halkaa page baan sameynaynaa halkan waxaan gelinaynaa brand iska dheh brand okay marka haddaan browserkeena furno oo kale aan fiirino waxaan haysano halkana brand ayaa noo soo baxday afar waaweyn ah marka kana zoom waan soo zoom garayaan badanaya hada brandigi waan sameynay waxaa kaloo ku xujisiinaynaa maxaa la yiraahdaa butankii saddexda xariiqimood lahaa yani marka mobile menu oo kale butankii ayaan sameynaynaa class waxaan siinaynaa navbar togla class la yiraahdo ayaan siinaynaa marka butankani wuxuu leeyahay ilaa laba attribute oo kale oo mid yahay data toggle data toggle waxaa dhahdaa collapse class la yiraahdo ayaan siinaynaa attribute kalena waxaa weeyaan asaguna data dash target kan oo yani kolba meesha la target garaynayo maaragtay yani waxaa la rabo ama in la xidho ama la furo kale menuga yani ayuu kana tilmaamaya marka waxaan leenahay hash magacaan rabnaa bixinayna marka menu ayaan leenahay markaas butanka waxaa kusii dhex jira maxaa la yiraahdaa span ayaan sameynaynaa spankana class ayuu wataa la yiraahdo navbar dash togla dash icon kuwan waa saddexdii xariiqimood ayuu noo sameynayaa saddexdii xariiqimood hoos yaal butanka hoostiisana waxaan ku sameynaynaa diffkii ay kusii guda jireen ulkan ama li oo kale menugii ayaan sameynaynaa waxaan leenahay collapse navbar dash collapse another tab id-ga ayaan sameynaynaa id-gani waa kii isku xidhayay maxay ahayday aan xaggan kusoo sameynay id-gaas weeyaan labadana la isku xidhayaa waxaan leenahay menu marka hashta waan ka reebaynaa
diffkan waxaa kusii guda jira URL baan samaysanayna waxaan leenahay navbar dash nav leenahay tab URL-ta waxaa kusii guda jira li classkana waxaa weeyaan nav dash item then waxaan leenahay tab kana khalday haddana waxaan leenahay classkana waxaa weeyaan nav dash link okay halkan waxaan ka dhigaynaa smooth scroll si aan ugu yeelo kale hash baan halkan ka dhigaynaa waxaan dhahaynaa marka home ayaan ka dhigaynaa and then halkan waxaan dhahaynaa home marka intan ayaa waxaan ku geysanaynaa 3 times shift alt down okay 4 times and then okay waxaan ka dhigaynaa contact ayaan leenahay kana waxaan ka dhigaynaa contact kana waxaan leenahay services yeah services markana waxaan ka dhigaynaa articles halkana articles okay marka control s aan save garayno meesha waxaan marayaa fiiriyata contact services marka kuwan waxaan ka dhigaynaa hal class oo kale ayaan ku daraynaa halkan classkana waxaan ka dhigaynaa waxaan rabnaa inaan midka geyno marka waxaan leenahay merging left out ayaan ka dhigaynaa halkan dot aan iska tirtirayna iska masaxaynaa marka control s save garaynayna perfect marka haddaan resize ku samayno kale marka butankii saddexdii xariiqimada rabnay ee butanka u samaynayna kuwaas okay waxaa kale aan samayno halkan naafka hoostiisa aan ku samaysano waxaa la yidhaahdaa sectionka waxaan siinaynaa id-gana waxaan isku mid ka dhigaynaa waxaa la yidhaahdaa homekaas home spellingkaas uu ka dhigo home waxaan leenahay one tab home section waxaan leenahay paragraph
سنة لورا 500 كده يعني سيان سكرول سميث كوارقنا سيان سكرول كوارقنا سيان كده هنا section kalian sama-sama hina okay karena idea yang sini hina idea waxaan ka dhigaynaa contact ayaan ka dhigaynaa contact that section paragraph ayaan samaysanaynaa paragraph waxaan ka dhigaynaa maxaa la yidhaahdaa lorem qoraal been ayaan iska qoranaynaa tab ayaan leenahay and then section kan ayaan soo gudbiysanaynaa okay marka waxaan leenahay shift alt down okay marka waxaan ka dhigaynaa kana service iyo articles idea waxaan ka dhigaynaa service waxaan ka dhigaynaa articles ayaan ka dhigaynaa form section contact service intaasaan u baahanahay marka control s ayaan leenahay marka waxaan sameynaynaa sectionka koowaad xoogaa waxaa weeyaan hoos baan soo yara dejinaynaa si aan aragno waxaan leenahay style inline style ayaan siinaynaa margin top ya waxaan ka dhigaynaa 20 pixel
dadan waxaan leenahay control s save gare marka hadda waa la arkaya kaas qoraalkana soo baxay weli wax yar baan ku daraynaa waxaad ka dhigtaa 25 save gare halkan waxaan ka dhigayaa si aan si fiican ugu aragno fadhiga ka dhig controllers marka home sectionka hadda waa la arkaya marka waxaan rabaa inaan maxay ahayd scroll spy aan siino oo yani marka walba meeshaan marayno sectionkaan marayno in uu noo highlight gareeyo maxay ahayd inuu maaragtay navbarka noo highlight gareeyo marka waxaan ku daraynaa navbarka ayaa waxaan siinaynaa id navbarkeena ayaa halkan waxaan siinaynaa waxaa la dhahay id waxaan bixinaynaa iska dhahaynaa nav scroll iska dheh kabacdi waxaa weeyaan meesha ugu hooseysa ayaan tagaynaa xoogaa yaro jQuery ayaan qoraynaa scriptiga hoosteeda ayaa waxaan ku qoraynaa script kale script kadib halkan ayaa waxaan siinaynaa waxaan leenahay $sign and then quotes body marka bodyga ayaan rabnaa inuu detect gareeyo waxaan leenahay kabacdi dot scroll spy waxaan leenahay scroll spy and then parenthesis kabacdi waxaan leenahay target colonies and then id aan sameynayaan halkan gelinaynaa id ayaan halkan gelinaynaa oo ahaa nav nav scroll yeah. Nav scroll yeah. then control s save ayaan leenahay